الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. برنامج إيه بر أما برون فريدة زايدي كواسي وانا ومين ونقبتا وحبرشا بسلا آني soo gaarsiisay gabadheena Iqra Jeelani ee macallimiintii noogu qayb qaatay tababarka kulay waxaan ku hadlayaa magacayga iyo magaca maamulka degmada Baraawe waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa barnaamijkan bar ama baro maanta waxay noo tahay sharaf weyn munaasabadan oo loo qabanayo macallimiintii muddada kooban qaadanayay seminaarka جارية لذلك الصعدة وكوحيغو إن شاء الله تعالى مسؤولك الله ما أنت فرحت إن ومدنا سوكو كرماها وأهم لوبا هناي مدة بدن تبدأ أوباهنا دواي رحمن محمد الشيخ وقام هذا علينا يا ولا شيء إني بروفيسور يقدكتي لكن أنا جامعة مداخل hataa number 1 ay taagneed waxa la dhihi karaa 0 ay taagneed haddana xoogaa yar waxa loo maleynayaa inay ma aragtay number 1 ma aragtay soo istaagi rabto waxbarashada waa horumarka wadan walba iyo dal walba anaga ka wadan ahaan degmada qaybihiisa kala duwan walow howlo kale ay jiraan haddii ay naga soo gaaraan insha Allah sabab u sheegay mas-uuliyad dheeraad ah ay saaran macallin marka tahay waa bulshada maanta khidmada la qaadanayo waxa إن أديكم في ندك أسوساريس. xafladan oo ahayd mid lagu guddoonsiiyey macallimiinta shahaado sharaf traininga qaatay ama tababarka qaatay maanta oo ahayd taariikhda 3 bisha 7 2021 xafladan waxaa ka soo qayb galeen qaybo ka mid ah maamulka degmada Baraawe xafladan soo qaban qaabiyey hay'adda bar ama baro oo ugu horeyso Dr. Iqra Jeelani Abu markii ugu horeyso maanta nooca lagu qabto magaalada Baraawe sanad waliba ayaa lagu qabtaa magaalada Baraawe waxaana soo qaban qaabiyo hay'adda bar ama baro ayadoo kaashanayso wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka Soomaaliya ugu horeyn kulankan waxaa ka hadlay gudoomiyaha waxbarashada degmada Baraawe Abubakar Nuur Sheekh kadibna ee loo qaybin doono iskuulaadka ee degmada ku yaalo ay noqon doonaan arday si bilaash ay wax u bartaan soo markaa waxa laga rabaa inaan ka shaqeyno si deegaanka u hormaro saad ogtihiin waxbarashada waa horumarka wadan walba iyo dal walba anaga ka wadan ahaan wadankeena Soomaaliya marka loo fiiro dhanka waxbarashada ay u liidataan markaan ka sii gudubno ka deegaan ahaanna deegaankeena marxalad soo maray xagga waxbarashada laakiin maadaama marxaladaas oo dhan ay soo martay hadda si waxbarashadii aan u horumarino waxaa laga rabaa macallimiinta bulshada odayaasha maamulka iyo intaba qaybaha kala duwan inay ka qayb qaataan si waxbarashada loo horumariyo idinka marka waxaa tihiin tiirka ugu adag waxbarashadaas iyo ardaydaas markaas la rabo in waxbarashada ay ka qayb qaataan laguna dhiirigeliyo soo marka shaqo badan aan oo taalo inaan hadalka ku dheereeyay marawi marti badan hala joogto insha Allah waxaan noqonaynaa kuwii ku dadaala horumarka deegaankooda aan noqon insha Allah waxaa kaloo hadlay kulanka gudoomiyihii hore ee maxkamadda degmada Baraawe Mr. Maxamed Cabduqaadir Faqi الحمد لله وثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا وكهاد لا يمجعيجا يمجع مامولك الدجمة براوة وحن آد أسود وين يا برنامج كان بر أما برو sida loogu dhawaajiyay barnaamijkan bar ama baro wuxuu barnaamijkan bar ama baro sanadkii 1974 saan jeclahay wuxuu ahaa barnaamijkii ololaha waxbarashada Soomaaliyeed ee gobol ilaa degmo la gaarsiinayay dadkana lagu barayay farta Soomaaliga inta kadib barnaamijkan waa barnaamij aad u dhiirigeliya ummadda Soomaaliyeed xagga aqoontana ka taageera waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa macallimiintii 25 sano ka badan degmada Baraawe u soo halgamay taliyaha booliska degmada Baraawe oo u mahad celiyay hay'adda bar ama baro kala duwan gudoomiyaha maxkamadda ururka haweenka
ururka dhallinyarada madaxa waxbarashada ama gudoomiyaha xigeenka waxbarashada iyo marti sharafka halka sugan macallimiinta saxaafadda dhammaan wax ku salaamay salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maanta waxay noo tahay sharaf weyn munaasabadan oo loo qabanayo macallimiintii muddada kooban qaadanayay seminaarka ama traininka si ay maaragtay boorka isaga jafaan awalba macallimiintu waxa waaye macallimiintii bay ahaayeen warshadii wax soo saaraysay ahaayeen laakiin in boorka laga sii jafo traininka ay u qaadanayeen oo maanta halkan lagu soo gebagabeynayo insha allah sharaf bay noo tahay annagana waxaan diyaar u nahay annagoo ku hadlay magaca alaamaha amniga inaan kaalinteeda ka qaadano waxaan leeyahay bulshada reer Baraawe waxaan ugu baaqayaa inay ka faa'iideystaan fursadahan waxbarashada oo aan isleenahay yar iyo weyn iyo qof maxaa la yidhaahdaa qofkii waxbarashada hore u soo seegtay waqti u waayay kuwa hadda u baahan dhammaan inay ka faa'iideystaan fursadahaas qaaliga intii juhdi soo gelisana waan ilaahay baan aragtay uga baryaynaa inuu khayr siiyo waa u mahadcelinaynaa waa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gudoomiyaha ururka haweenka degmada Baraawe Faadimo Cusmaan Gaawo oo u mahadcelisay hay'adda Bar ama Baro gudoomiyaha haweenka ururka dhalinyarada ee fadhiyada dhammaan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu alxamdulilah ilaah mahadda iskale fursadan uu iskugu keenay alxamdulilah mahadda Allahna abuura iskale waxaan leeyahay maanta farxadana mid la soo koobi kara ma ahan waa arrin loo baahanay muddo badan degmada u baahneed waaye waxaan leenahay intii soo qaban qaabasay intii hel iska saartay intii jad gelisayna waxaan leeyahay waad mahadsantihiin wax badan inaan kala faa'iidaysan doono haddii ilaahay idmo garabkiina Allah galo ducaa idin haynaa waagelina waa idin samaynaynaa si waalidiinta iyo macallimiinta iyo waalidka ay isku xirmaan cunuga meesha wax ka baranaya inuu ahaado cunug oo haatif ah meesha ka soo baxay marka imtixaanaad soo socda waxaan leenahay Baraawe inay ka aarsan doono degmooyinka kale maadaama ciil badan aan la saaxi weyno korka in la huraayo macallimiinta waxaan leeyahay sanadkan inaa xoog saartaan insha Allah arday badan inaa soo saartaan oo la tartami doona soonka soo socda hadii Ilaahay idmo waana mahadsantiin waa idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gudoomiye ku-xigeenka ururka dhalinyarada degmada Baraawe Aamina Cali Suido degmada Baraawe barnaamijka Bar ama Baro ee la soo gaarsiisay gabadheena Iqra Jeelaani ee macallimiintii noogu qayb qaatay tababarka kule waxaan leeyahay ma sha Allah juhdi badan iyo dadaal badan kule 9 qofood qof la soo tartamay oo guusha maanta Baraawe soo hogaamiyay wax yar ma ahan Iqra Jeelaani adi iyo dadka kula socdo waxaan leenahay aad iyo aad u mahadsantihiin anigoo ku hadlaayo ururka dhalinyarada degmada Baraawe kule insha Allah ilmaha aan wax baran ilmaha agoonta dadka danta yar aan wax haysanin kule dhankan inaan ka wacyigelino shaqadeena ay tahay haddii aan dhalinyaro nahay ururka habeenkana garabkayga fadhisaa insha Allah kama gaabineyno ardaydeena Baraawe inay wax bartaan anaga jecel insha Allah aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin macallimiinta ka qayb qaadatay barnaamijkan Bar ama Baro aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin insha Allah dadaal badan ayaa idinkaga fadhinaa haddii aan nahay ururka degmada Baraawe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qaar ka mid ah maamulada iskuulada Baraawe oo ka hadleen dareenkooda ku aadan kulankan dadka ugu sharfay halkani ugu horeyso Iqra Jeelaani Abu oo madaxa ah hay'adda guddoonka waxbarashada maamulayaasha guddoonka maxkamadda dhammaan macallimiinta waxaan idinku salaamayaa salaanta ugu qiimaha badan oo ah salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka dib runtii waxaan ka socdaa iskuulada degmada Baraawe gaar ahaan dugsiga waa la yaqaan laakiin magaca waxaan ku hadlayaa maamul ahaan marka hore aad baan ugu faraxsanahay runtii todobada maalmood ee training macallimiinta lagu soo waday saakana anagan aan kaga soo qayb galnay xafladan sharafta aan lagu wacay anagoo macnaha aan fiirinayno qaabkii dadaalkii juhdigii aadka loo soo bixiyay shahaadooyinkii insha Allah inaan kaga noqono marqaati taas aad baan ugu farxeynaa mid xigta waxay tahay macallimiin runtii aad u tabaaleysnaa oo u baahnaa dhigjoojin ayaa maanta wax laga gaarsiiyay dhigjoojintii marka uu faraxsanahay degmada in badan waxaa laga dhawaajiyaa waxbarashadii aad bay ugu liidataa marka ardaydaas oo dhan haddaan u helno waxbarasho meesha waxaa ka soo baxayo uwad runtii wax baranayso oo laga faa'iidayo marka qof walba wuxuu kusoo tashkiilin karaa ardayda
waxa meelaha wareega oo dhan macallin walba hadda waxa lagu qoondeeyaa 50 arday waxaa kale oo baaq u jeediyey hay-adda bar ama baro macalin Jeylaani oo ka mid ah macallimiinta qaatay training ama tababarka oo ka hadlay kulanka. waxaan halkan ka salaamayaa ugu horeyn martidii sharafka leh ee xafladan ka soo qayb gashay ugu horeeyo jaaliyadda ninka ka socda oo ku xigo insha allahu tacaala mas-uulka baab madaxa hooyooyinka agaasimaha airboortka dhammaan maamulayaasha iskuulka dhammaan gabadheenna ama macalimadeenna iqra Jeylaani Abu ikhlaas ayaan uga soo bixi doonaa insha allahu tacaala waxqabadkeenna waa arki doontaan. waxaan leeyahay degmada Baraawe maadaama hooyo ay nala joogto in caruurtii lasoo bixiyo oo naloo keeno wacyigelinta nagala qayb qaadataan dhammaan rag iyo haween aan loo kala harin insha allahu tacaala annagana waxqabadkeennii runtii aan laba jibaari doonno haddii allimdii ilaahna gaarsiiyo. marka waxaa idin leeyahay waa mahadsantihiin dhammaan intii ka soo qayb gashay xafladan qiimaha badan leh iyo baab teachers dadkii noo keenay iyo agaasimaha ka socda hay-adda dhammaan waxaa idin leeyahay waa mahadsantihiin. macallimiinta degmada Baraawe aad iyo aad idinku mahad celinayaan. wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. waxaa kaloo ka hadlay agaasimo ku-xigeenka airportka Baraawe. fadhiyaan ku salaamayaa meeshan waxaa looga hadlayo waxay tahay waxbarashada degmada Baraawe sanadihii lasoo dhaafay aad u liidatay haddana xoogaha yar ma aragtay tallaabo aan qaadeyno maadaama sanadihii hore ee zero joogtay lama dhihi karo hataa number 1 ay taagneed waxaa la dhihi karaa zero ay taagneed haddana xoogaha yar waxaa loo maleynayaa inay ma aragtay number 1 ma aragtay soo istaagi rabto. ugu dambeyn Dictoreso Iqra Jeylaani Abu oo ku soo afmeertay Gaway oo meelo badan tataawanayo sida tan u dhici doonaa ardayahay wanaagsani waxbarasho loo aayiyo u istaagnaa aqoonto aqrinaya duruuste haddii saaqlaaq xumo hadba meel abaartiyo afilagaada iyo dagaal ibtila u joog tahay waa ayaan daray ogow ooraha kale oo dardaarana aniga idiin ishaaro ixtiraam macallinkaago ogolow amarkiisa arday dhibaato keeniyo ha noqon mid abaalaca innagoo isu duuban waxaynu nahay ubadkii la abaabinayo wixii dalkaan nahay ardayahay dhammaantiin ololaha cilmigo ila isku gaarnaye annagoo mid qura aan ka wada aflaxnay Baraawe schools. thank you. Mohamed Hussein Saeed TV-ga Som TV Soomaaliya xaruntiisa dhexe ee magaalada Baraawe.